السلام عليكم وعلى خضاء walaalkayow walaashay hal su-aal aan idin weydiinaya. su-aashaas waxay tahay kaba soo qaad adiga qof ayaa ku quudiya, yacni noloshaada oo wax kasta aad u baahan tahay dhan kasta ah asaga ayaa ku quudiyaba. yacni lacag buu ku siiyaa, yacni haddaad u baahan tahay waxaad cunto ku siiyaa, gaari haraac, wax kasta noloshaada ayu nooc asagaa qaabilay, asagaa ku quudinaya qofkaas. marka qofkaas yacni qalbigaaga sidee ayuu ku ahaanaya? labadiina marka la fiiriyana yaa la ixtiraamaa oo la xushmeeyaa oo laga xishoodaa. runtii oo qofkaas ku quudinaya aad baad u ixtiraamaysaa, aad baad uga xishoonaysaa, waa yacni noloshaadoo dhan baa ku tiirsan. sax mase been? sax. arrinta aan la yaaba ayaa waxay tahay xadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday. xadiis nabi sal ly slam wuxuu leeyahay ina allaha xayi, allah subxaanahu watacaala waa mid xishood badan. xayi yacni waa kathiiru lxayaa, aad buu xishood badan yahay. yastaxyii min cabdihi, addoonkiisa ayuu ka xishoonayaa idaa madda yadayhi ilayhi an yuradahumaa sifraa. allah subxaanahu watacaala wuxuu ka xishoonayaa in addoonkiisa hadduu labada gacmood u taagto inuu eber soo celiyo. allahu akbar. walaal bal u fiirso, yaa inaga xishoonaya? allah subxaanahu watacaala yuu ka xishoonayaa? adiga ayuu kaa xishoonayaa. walaalayaal, dhulkan markii kor laga fiiriyo, yacni aniga, adiga iyo qof kastoo adduunkaa saara lagama yaabo in la arko, yacni lama arkayo markii kor laga fiiriyo. maxaad u malaynaysaa allah subxaanahu watacaala abuuray dhulkan iyo kownkan oo dhan inuu adiga kaa xishoonayo, in marka aad gacmaha u taagatid uu ka xishoonayo inuu eber ku soo celiyo. haddaba walaal, waa maxay sababta aan markasta u ducaysan la-aanahay? waa maxay sababta markasta aan gacmaha rabbi subxaanahu watacaala ugu taagan la-aanahay? allah subxaanahu watacaala haddii aad wax weydiisatid, ducadaada dhowr noocun bay noqonaysaa. waa marka koowaad in allah subxaanahu watacaala wixii aad weydiisatay uu ku siiyo. waa midda labaad in allah subxaanahu watacaala kuu dooro wix adiga ku wanaagsan. waxbaad weydiisatay laakiin allah subxaanahu watacaala wuxuu kuu doorayaa meesha adiga ku wanaagsan. waa midda saddexaade in rabbi subxaanahu watacaala uu kaaga xijaabo shar kugu soo socotay. yacni allah subxaanahu watacaala ducadan aad ku ducaysanaysid, allah subxaanahu watacaala wuxuu kaaga xijaabayaa shar kugu soo socotay. waa midda afraad uguna fiican uguna qiimaha badan waxay tahay inuu allah subxaanahu watacaala ducadaada uuna ka aqbalin, bal ku dibdhigo aakhiro. hadduu aakhiro markaad tagtid aad aragtid ducooyinka aad ku ducaysan jirtay oo dhan oo xasanaad ah oo ajar ah. allahu akbar, maxaa ka wanaagsan? buuro xasanaad ayaad helaysaa. sidoo kale walaalayaal, malag waxaa jira hadda sujuudsan, waqtigan aad videoga daawanaysa wuu sujuudsan yahay, ilaa iyo aakhiro laga gaari wuu sujuudsanaanayaa. kadib marka aakhiro la yimaado, malagaas waxau dhahayaa mataqaanaa maa cabadnaaka xaqa cibaadatig, allah yow kumaan caabudin cibaado kuu qalanta. ka waran annaga maxaan dhahaynaa? malagii intaas oo malyan oo sana soo sujuudsanaa marka uu hadalkaas ku jawaabo, annaga maxaan dhahaynaa way kula tahay? allah subxaanahu watacaala walaalayaal hanoo dembi dhaafo, ducadana aan badino biidni illah. allah subxaanahu watacaala asaga kaa ballan qaada inuu kaa ajiibiyo. udcuunii astajib lakum, ibarya waan idinka ajiibayaaye.